madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta aqalka madaxtooyada Boosaaso ku qaabilay madax ka socota Talyaaniga iga dowladda federaalka iyo baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo maalinta bariya ka qayb gali doona dhagaxdhiga dhismaha wajiga labaad ee garoonka diyaaradaha Boosaaso iyo mashaariic dowladda Talyaanigu ka fulisay magaalada Boosaaso. madaxda uu maanta qaabilay madaxweyne Gaas ayaa waxa kamid ah safiirka Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya Marshali xogayaha guud ee urur goboleedka igad Maxbuub Macalin iyo wakiilka igad Soomaaliya Maxamed Cabdi Afe halka wasiirka durista hawada Soomaaliya Jangale iyo xildhibaan Juurina ay soo gaareen. madaxweynaha Puntland ayaa saxaafadda u sheegay ujeedada wafdigan heerka sare ee soo gaaray Boosaaso. wafdi culus oo isugu jira madaxdii igad dowladda Talyaaniga hay'adda Unobis dowladda federaalka ayaa inoo yimid aad baan ugu faraxsanahay imaatinkooda. wafdigu intaas tira leeg waxay u yimaadeen hawl runtii muddo laga waday Puntland dhamaystirka mashaariicdii hore uga socotay oo aeroboortku ka mid yahay hirgelinta mashaariic cusub iyo furitaanka mashaariic hore uga hirgashay Puntland gaar ahaan Boosaaso oo ay hay'adahani ay maalgeliyeen soo dhawaada leenahay. And as you know, Italy has a very robust cooperation program with Puntland, finishing the last project that were already planned. xogayaha guud ee urur goboleedka igad Maxbuub Macalin iyo wasiirka durista hawada Soomaaliya Jangale ayaa carabka ku adkeeyay bil halka joognay waxaan ballanqaadnay in bil gudaheeda aan ku soo dhamaystiri doono abaabulka loo baahan yahay wixii shaqada dawladda ay maaragtay raacsku deeran la qabano ilaahay maaragtay uu noo yeelay waxaan u nimisay balaarintii mashruuca Boosaaso aan ka qayb galno baan uga mahadnaqaynaa soo dhaweynta. Ahmad Shaam, Hon Cable TV, Boosaaso.